Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaashiina Sacdiida Haroodi Mooda muuqaal kale cusub. Fadlan hadaa ku cusubtaa janaalka saar gambarelka fursi muuqaal waliba aan soo gelin oo kugu soo dhaco una sheer galay asxaabtada aad iyo aad u mahadsantiin kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan waxaan sameyn doonaa insha Allah cream chicken sidaan u sameyn doono iyo waxyaalaha aan ka sameyn doono daawasho wanaagsan. Meeshan waxaa ii yaalo chicken aan si isla soo jaray kadibna aan si dhudhu u jaraayo. Hadda waxaa isla imaanay digsiga ayaa imaaday waxaa ku shubayaa saliida. Haddana waxaa kusoo shubayaa chickenkii. Chickenka waxaa usoo jaray si dhudhu waana qaybta shafka oo aan lafta lahayn. Si fiican oo walaaqayaa kadib waxaa u isticmaali doona waxaan ku darayaa cusbo iyo filfil ayaan rabaa inaan ku kariyo marka horeeto aan ku shiilo. Hadda filfishii ayaan kusoo daray waan shiilayaa ilaa uu gaduud ka noqdo ama dahabi oo ka noqdo oo soo bislaado oo wax biyan kuma darin. Hadda sidaa u jeedaan waa kaasa sidaas ayaa rabaa inuu noqdo dahabi inuu noqdo la rabaa. Wax biyana ku dhacankiisa oo kaliya ayuu ku bislaanayaa. Hadda markii aan chicken ka bixiyay weelkii waxaan kusoo shubayaa hal xabo basal cad oo weyn aan soo jarjaray oo si yar aan usoo jarjaray ayaan ku shubayaa. Waxaan rabaa inaan basasha aan kariyo oo bisleeyo ilaa ay jaala ka noqoto si fiican ay u bislaato. Digsi weelkii aan hadayta chicken ku kariyay ayaan ku karinayaa. Hadda waa tanaajib basashii way soo bislaatay sidaa rabo way ii noqotay. Hadda waxaan ku darayaa waxaan rabaa kareemka inaan sameeyo marka horeeto. Hadda waxaan ku darayaa 2 qaado oo bur hal qaado weyn iyo hal qaado haaf oo bur burka caadiga. Burka bedelkiisa waxaa isticmaali kartaa cooking kareemka isticmaali kartaa oo cuntooyinka loogu talagalay. Haddii aad haysanin bedelkiisa waxaa isticmaali kartaa bur. Hadda burkii ayaan ku daray basashii iyo saliidii aan soo shiilay ayaan burkii ku daray waa isku walaaqayaa si fiican si uu kuuskuuska dhan uga baxo. Hadhoodii kuuskuus iyo waxaas dhan ay u yeelanin. Hadda waxaan kadana ku darayaa 2 qaado oo shiishiidka caadiga ama damaadim sida u taqaaniinba. Shiishiidka caadiga waxaan ku darayaa 2 qaado. Shiishiidkii ayaa hadda ku walaaqayaa si fiican aan walaaqayaa si oo u dhex galo. Hadda waxaa kusoo shubayaa caanaha caadiga oo aan ahayn caano booraha. Waxaa kusoo caanaha gasac ku jira waaye ku darayaa 1 koob oo buuxo. Si fiican aan u walaaqayaa si uu kuuskuus iga yeelanin burka. Dabkana waa u yar u dheereeyay sababtoo ah caanaha qabow bay ahaayeen. Caanaha qabow haddii aad digsiga ku shubtin wuu sii qaboobayaa. Hadda caanihii oo kaliya aan ku soo kariyay. Hadda waxaan ku darayaa 1 koob oo biyo kulul oo karkaraayo. Waa walaaqayaa wax hadaytana kuma aan darin bahaaraad Hadda waxaan ku darayaa chickenkii aan soo shiilay hadayto. Chickenka markaa ku daro hadda waxaa kusoo darayaa sanjabiil iyo toon taas u jeedaan aan soo shiidayaan ku darayaa. Hadda waxaa ku darayaa xawaaji kaari iyo maraq digaag oo qudaarta ka samaysan 2 qaado oo yar. Markaa ku daro xawaajiga iyo maraq jubbaha markaa ku daro maraq qudaarta ka samaysan waxaa ku darayaa kaleeto 2 jab oo yar oo batar ku darayaa si uu ama dhadhan fiican u yeelo. Hadda waa kana dabka u gaabiyay sidaas ayay u karkaraysaa. Haddii ay laanta nala soo gaartay fadlan subscribe saar gambarelka fursi muuqaal waliba aan soo gelin oo kugu soo dhaco. Aad iyo aad u mahadsanyihiin asxaabta quruxda badan ee maalin walba nagu soo biirayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan dambe xiiso leh.